xalqadda saddexaad waxay ku bilaabanaysaa habeenkaas waxay ahayd markii Hena ay samayn lahayd kormeerka ardayda. Waxay ogaatay in 3 arday ay maqan yihiin, markaasay si degdeg ah u bilowday inay raadiso. Siwon ayaa si lama filaan ah u arkay Hena, wuxuuna isla markiiba go'aansaday inuu raaco si uu u caawiyo. Labadoodu si adag ayay u raadiyeen ardaydii, laakiin way weeyeen. Maadaama waqtigii Hena ay eeyga u bedelmi lahayd uu soo dhawaaday, ma haysan waddo kale oo aan ka ahayn inay isaga tagto Siwon si ay u dhuumato. Siwon ayaa markii dambe helay 3dii arday. Wuxuu wacay qofka ka kaxeeya halkaas si guriga loogu celiyo. Siwon aad buu u walwalsanaa sababtoo ah wuxuu waayay Hena, taleefankeeduna ma qabanaynin. Xilligaas wuxuu arkay Hena oo eey ah. Siwon wuxuu dareemay in eeygani uu aad ugu eg yahay midkii uu hore u yaqaanay. Isla markiiba islaan duq ah ayaa timid oo qaadatay Hena. Hena waxay ku fiirinaysay Siwon indho caawinaad weydiinaya, laakiin isagu ma uusan aqoonsan in eeygu uu yahay Hena. Jaajin ayaa ogaaday in Hena ay maqan tahay, wuxuuna u orday inuu raadiyo. Jaajin wuxuu meel gees ah uu ka helay dharkii Hena. Jaajin wuxuu afuufay gambaleelka isagoo rajaynaya inay Hena maqasho. Dhanka kale, Hena waxaa gurigeeda geysatay islaantii duqda ahayd, waxayna ku xirtay tiir. Waxay u muuqatay in islaantu ay rabto inay Hena ka dhigato raashin gaar ah. Hena aad ayay u cabsatay, markaasay silsiladii qaniintay oo ay baxsatay. Hena waxay aragtay Siwon oo raadinaya, waxayna u orday dhankiisa. Nasiib darro, Hena waa ay simbiriiraxatay waxayna ku dhacday god dheer. Markaas ayay Hena maqashay yeerida Jaajin ee raadinta ah, laakiin Jaajin markasta oo uu isku dayay wuxuu awoodi waayay inuu godka ka soo saaro Hena. Jaajin wuxuu go'aansaday inuu dharkii Hena godka ugu tuuro, kadibna uu cararo si uu u soo helo qof kale oo caawiya. Subaxnimadii dambe markay saacadu ahayd 6 subaxnimo, Hena waxay dib ugu soo noqotay qof bani'aadam ah. Hena waxay kor u tuurtay kabaheedii, Siwon ayaana arkay. Taas darteed wuu garan waayay meesha ay ka timid, laakiin wuxuu ku guulaystay inuu godka ka soo saaro. Xilligaas Hena aad ayay u daalanayd waxayna ku dhacday Siwon dushiisa. Siwon ayaa markaas ka caawiyay Hena inay dhaawaca lugta ka xirato, kadibna dhabarka ayuu ku siday ilaa guriga. Muuqaalkaas jacaylka ah waxaa si kedis ah u arkay Bokyam. Wejiga Bokyam lagama dareemayn farxad ama murugo midna. Gabar ayaa timid oo u yeertay Bokyam, waxayna ugu yeertay macallin. Waxaa soo baxday in gabadhan ay tahay ardayad cusub oo dugsiga lagu soo daray, magaceeduna yahay Sonjun. Gabadhani waxay ahayd mid aad u qariib ah. Waxay lahayd awood ay ku xasuusan karto waxyaabihii ku dhacay nolosheedii hore. Arday dugsiga ka mid ah ayaa waxaa ka lumay boorsada lacagta. Sidaas darteed, Hena iyo Siwon ayaa mas'uul ka noqday inay raadiyaan. Kadib markii ay labadoodu heleen boorsadii, waxay ka faa'iidaysteen fursadda si ay u wada lugeeyaan oo ay u wada adeegtaan. Muuqaalkaas waxaa si qarsoodi ah u arkay oo sawir ka qaaday ninkii hore u qabi jiray Jona oo ah walaasha Hena. Hena iyo Siwon ma oga inay jiraan dad raad gureynaya oo soo daba socda. Waxay sii wadeen inay si farxad leh u wada qoslaan oo ay u wada ciyaaraan. Safarkaas kadib, xiriirka Siwon iyo Hena aad buu u soo wanaagsanaaday. Siwon wuxuu ogaaday inay Hena hadda ka luntay xiisihii ay u qabtay Bokyam, markaasuu go'aansaday inuu jacaylkiisa u sheegto. Laakiin waxaa hor istaagay Jina oo markasta ku dhaganayd. Dhankeeda, Hena waxay dareentay inay Siwon aad u jeceshahay, laakiin cid ay u sheegto ayay weyday, waxayna sirtii la wadaagtay abtigeeda. Hena waxay rabtay inay xiriir dhab ah la yeelato Siwon, balse taasi waxay ku qasbaysay inay sirtii inkaarta ay u sheegto. Waxay aad uga cabsanaysay haddii ay sirtaas ay u sheegto inuu ka fogaan doono oo ay weyn doonto. Abtigeeda ma uusan rabin inay Hena noqoto sidii isaga oo kale oo ay nolosha ku dhibaatooto, markaasuu ku dhiirigeliyey inay geesiyad noqoto oo ay farxadeeda u dagaalanto. Dhiirigelintaas darteed, Hena waxay go'aansatay inay wax kasta u sheegto Siwon, xitaa inay hortiisa ay isugu bedesho. Isla markii ay Hena tagtay guriga Siwon, waxay aragtay isagoo la kulmaya Janmin. Janmin wuxuu ahaa ninkii Siwon dugsiga ku dhibi jiray. Wuxuu arkay sawiradii uu ninkii Jona hore u qabi jiray soo dhigay internetka, markaasuu aqoonsaday Siwon. Laakiin Siwon hadda ma ahan ninkii daciifka ahaa. Wuxuu gartay xeelada xun ee Janmin, wuxuuna si xoog ah u jabiyey qalinkii uu Janmin kamarada ku qariyay, isagoo ugu hanjabay inuu goobta uu iskaga tago. Janmin ayaa markaas bilaabay inuu sidii eeyga uu qayliyo si uu qaniino Siwon, wuxuuna xitaa ugu hanjabay inuu arin fadeexad uu ka qori doono. Hena waxay dareentay in waqtigii ay eeyga ay noqon lahayd uu soo dhawaaday, markaasay meel gees ah ku dhuumatay. Laakiin Janmin ayaa si lama filaan ah u helay, wuuna soo daba cararay. Markii uu goobtii yimid, wuxuu arkay dharkii Hena oo dhulka yaalla iyo eey cararaya. Isagoo walwalsan ayuu Hena wacay, laakiin waxay ahayd eey, waxayna dareentay qoomamo weyn. Maalintii xigtay, Jona iyo Hena waxay ku laabteen meeshii si ay dharkii u soo qaataan, laakiin waxba ma aysan soo helin. Xilligaas waxaa soo wacday hooyadooda, waxayna ka codsatay inay guriga yimaadaan. Hooyadooda waxay Hena weydiisay inay saaxiib leedahay iyo halka ay inkaartii marayso. Labadii walaalo si adag ayay u diideen, taas oo ay ku qasbanaatay hooyada inay gurigooda soo degto si ay u ilaaliso. Habeenkaas, Jona waxay sugtay inta hooyadeeda ay ka seexanayso si ay Hena qolkeeda ugu celiso. Laakiin si lama filaan ah, saacaddii digniinta ayaa dhacday, taas oo hooyadii soo toosiyey. Hooyadii ayaa Hena isku duubtay oo diiday inay fasaxdo, markaasay Hena ku qasbanaatay inay isu beddesho isla hooyadeeda horteeda. Hooyadii oo aad u caraysan ayaa ku amartay Jona iyo Hena inay ballan la soo sameeyaan saaxiibka Hena si uu guriga u yimaado berito. Hena markay taas maqashay, naxdin darteed ayay way dhaqaaqo weysay. Maalintii dambe, hooyada ayaa cunto aad u macaan diyaarisay. Hena waxay istiri, malaha hooyada geeridaada ayay u diyaarinaysaa cuntadan cabsi darteed. Laakiin Jona ayaa u sheegtay Hena inay wax kasta habaysay. Qorshaha Jona wuxuu ahaa inay wacdo Jaajin si uu iska dhigo saaxiibka Hena oo ay hooyada u khiyaanaan. Hooyada Hena aad ayay ugu qanacday Jaajin, laakiin Hena aad ayay u cabsanaysay waayo Jaajin weli wuxuu ahaa wiil yar oo arday ah. Jaajin hadalladiisa xariifnimada leh waxay ka dhigeen hooyada Hena mid
aad u faraxsan. Si kastaba ha ahaatee, si ay u hubiso, hooyada Hena waxay go'aansaday inay Jaajin guriga ku xirto hal habeen. Waxay rabtay inay indhaheeda ku aragto gabadheeda oo inkaartii ka baxday ka hor intaysan isdhiibin. Hena markii ay aragtay in xaaladdu ay adag tahay, waxay ku qasbanaatay inay hooyadeed wax kasta u sheegto oo ay runta u qirato. Hooyadii markay ogaatay inay qof khaldan soo xiratay, waxay fasaxday Jaajin. Hena waxay markii hore qorshaysay in Jaajin uu basku guriga ku celiyo, laakiin markii ay ogaatay in maanta ay tahay dhalashada Siwon, ayay fikirkeedii beddeshay. Siwon aad buu u faraxsanaa markuu arkay Hena oo u timid. Wuxuu ka sii farxad badnaa markii uu hadiyad uu ka helay gabadha uu jecel yahay. Hena waxay sidoo kale u diyaarisay keega dhalashada. Kadib markii ay wada cunteeyeen oo ay cabeeyeen, saddexdoodii ayaa bilaabay inay lugeeyaan. Maadaama labadii kale ay isku mashquuleen, Jaajin wuxuu go'aansaday inuu dib u gurto oo uu iska tago. Ilmo ayaa ka soo qubatay geesaha indhihiisa. Jaajin wuxuu dareemay inay aad u adag tahay in qof aad jeceshahay uusan ku jeclaanin. Siwon wuxuu rabay inuu jacaylkiisa u sheegto Hena, laakiin iyada ayaa ka joojisay. Hena waxay rabtay inay iyadu noqoto qofka bilaaba hadalka, markaasay tagtay suuliga si ay isugu soo tababarto hadalka. Kadib waxay cabtay xoogaa cabitaan ah si ay geesinimo u hesho. Siwon wuxuu u qaatay inuu Hena dareen xun uu ku riday, markaasuu ka codsaday inay wax kale aysan dhihin. Sidaas ayay labadoodii aamusnaan ku wada lugeeyeen. Hena way sarqaansanayd, waxayna fiirinaysay ubaxyada wadada hareeraheeda yaala, kadibna waxay madaxa saartay garabka Siwon. Xilligaas ninkii Jaanmiin ahaa ayaa si qarsoodi ah u xaday alaabtii Hena, wuxuuna bilaabay inuu macluumaad ka raadiyo kaarkeeda shaqada. Siwon markii uu arkay Jaanmiin oo ardaydiisa weydiinaya macluumaad ku saabsan Hena, aad buu u walwalay. Jaanmiin wuxuu aaday maqaayada digaaga ee ay leeyihiin waalidiinta Hena. Kadib markii ay sheekaysteen, Jaanmiin wuxuu aabbaha Hena ka codsaday inuu tuso sawirka gabadhiisa. Isla waqtigaas waxaa soo gashay hooyada Hena, way feejignayd waxayna markiiba joojisay ficilkii doqonnimada ahaa ee ninkeedu rabo inuu sameeyo. Tani waxay Jaanmiin ka dhigtay mid aad u caraysan. Ma uusan bixin, balse wuxuu istaagay dibadda isagoo si dhuumaalaysi ah u dhagaysanayay wada hadalka waalidiinta Hena. Jaanmiin wuxuu bartay in abtiga Hena markii uu ay u bedelmay loo diray dukaan xayawaanka lagu iibiyo. Jaanmiin isla markiiba wuxuu meeshii u diray qof si uu baaritaan u soo sameeyo, wuxuuna si qarsoodi ah u xirtay kaamarad. Habeennimadii Hena waxay walaasheeda Joona u sheegtay inay qorshaynayso inay Siwon wax kasta u sheegto. Joona waxay kula talisay inay dib uga fikirto, waayo hore ayay saaxiib u lahayd oo ay sirtan u sheegtay, balse natiijadu waxay noqotay in muuqaaladaas loo isticmaalo in lagu handado. Hena iyo Joona waxay u wada hadlayeen si degan iyagoo aan ogeyn in Jaanmiin uu dhageysanayo. Jaanmiin isla markiiba wuxuu raadiyey ninkii hore u qabi jiray Joona, lacag ayuuna siiyey. Jaanmiin wuxuu rabay in ninkaas uu baaritaan dheeraad ah uu ku sameeyo qoyska Hena. Habeenkaas Siwon iyo Hena waxay u baxeen balan jacayl. Siwon wuxuu arkay nin uu ka shakiyey oo isku dayaya inuu u dhawaado Hena. Inkasta oo ay khatar jirtay, haddana wuxuu u cararay dhankeeda si uu u badbaadiyo, isagoo markiiba ninkii qabtay. Balse ninkaasi wuxuu noqday Hena aabaheeda. Markii uu aabaha Hena uu arkay sida uu Siwon naftiisa ugu biimeeyey si uu gabadhiisa u ilaaliyo, aad buu u naxay, waana uu ku qancay. Wuxuuna ogaaday in Siwon uu yahay ninkii Hena ka xaday isku soo dhawaanshihii ugu horeysay. Isla markii uu aabaha Hena uu rabay inuu u sheego sirtii inkaarta ee eeyga, ayay Hena gacanta afka ka saartay oo meel fog ka kaxaysay. Hena ayaa markaas aabaheeda u sharaxday xaaladda ay ku jirto. Aabaheeda wuxuu ku dhiirigeliyey in haddii Siwon uu dhab ahaan u jecel yahay, inuu aqbali doono sirtan. Dhiirigelinta aabaheed darteed, waxay go'aansaday inay Siwon wax kasta u sheegto. Laakiin xilligaas ayay fariin ka heshay qof aysan garanaynin. Qofkaas wuxuu u soo diray sawirka dharkii ka lumay, wuxuuna ka codsaday inay kulmaan saq dhexe habeenimo. Hena iyo walaasheeda Joona ayaa aaday goobtii ballanta. Jaanmiin ayaa soo tuuray dharkii iyo qalabkii codka duubayay ee uu sii diyaarsaday. Jaanmiin wuxuu u hanjabay Hena, isagoo ku yidhi, waa inaad ii keentaa dhammaan lacagta ku kaydsan. Haddii kale, Jaanmiin wuxuu u sheegay inuu sirtii Hena oo dhan u bandhigi doono Siwon. Hena iyo Joona way garan waayeen sidii ay xaaladan adag u xallin lahaayeen. Sidaas darteed, ma haysan wado kale oo aan ahayn inay waalidiintooda caawimaad weydiistaan. Hooyadeeda waxay ka codsatay xubnaha qoyska inay berito shaqada ka fasax qaataan si ay xal u wada raadiyaan. Siwon aad buu u walwalay markii uu arkay Hena oo shaqada ka maqan. Siwon wuxuu si kedis ah u ogaaday in Jaajin uu been ka sheegay eeyga saaxiibkiisa. Inkasta oo Siwon uu su'aalo weydiiyey Jaajin, haddana Jaajin wuxuu go'aansaday inuusan Hena khiyaanin. Siwon wuxuu keenay cunto, wuxuuna ku soo xiray albaabka Hena horteeda. Joona waxay dareentay dembi weyn maadaama ninkeedii hore uu Hena dhibaatadan dhex dhigay. Isla waqtigaas, waalidiinta Hena waxay adeegsadeen xoog si ay u furaan taleefankiisa oo ay u helaan cinwaanka Jaanmiin. Jaanmiin wuxuu markaas internetka ku faafiyey inuu jiro macallin habeen walba noqonaysa eey. Siwon wuxuu ogaaday in Jaanmiin uu wax kasta ka dambeeyo. Sidaas darteed, habeenkaas ayuu u tagay Jaanmiin. Jaanmiin wuxuu iska dhigay qof cararaya, wuxuuna Siwon uu keenay meel cidlo ah. Jaanmiin wuxuu isticmaalay xeeladiisii hore, isagoo u keenay eey si uu Siwon u cabsiiyo. Siwon cabsidiisii eeyga ayaa curyaamisay. Jaanmiin wuxuu ka faa'iidaystay fursaddaas, Siwon ayuuna madaxa ku dhuftay. Xilligaas, waalidiinta Hena waxay galeen gurigii Jaanmiin, waxayna ka xadeen dhammaan qalabkii kombuyuutarada ahaa. Jaanmiin wuxuu ugu hanjabay Hena inay timaado, haddii kale uu dili doono Siwon. Hena oo walwalsan ayaa u carartay dhankii khatarta. Jaanmiin wuxuu rabay inuu dadka tuso Hena oo ay noqonaysa. Laakiin intuusan Jaanmiin falkaas xun samayn, Siwon ayaa soo booday oo feer dhulka ugu riday. Waxaa soo baxday in Siwon uu ka adkaaday kooxdii Jaanmiin oo uu baxsado. Hena iyo Siwon ayaa banaanka u cararay. Siwon wuxuu rabaa inuu ogaado sirtii Hena. Roobka hoostiisa, Hena waxay garan weyday sida ay hadalka u bilowdo, laakiin isla markaas waxaa yimid waqtigii ay eeyga noqon lahayd. Hena waxay Siwon
Siwon hortiisa ku noqotay ay. Inkasta oo uu Siwon aad uga cabsan jiray eyga, haddana markan wax cabsi ah ma uusan muujinin. Sababtoo ah eygan wuxuu ahaa Hena, isaguna kama cabsanayo qofka uu jecel yahay. Siwon ayaa dhunkaday eygii, markaasay Hena dib ugu soo noqotay qof bani aadam ah. Inkaartiina halkaas ayay ku jabtay. Labadoodii waxay isku qirteen jacaylka ay isu qabaan. Waxaa soo baxday in inkaarta saaran qoyska Hena uu saaray Bokiam. Bokiam noloshoodii hore wuxuuna ahaa kii inkaarta ku riday faraca gabadhii uu jeclaa kadib markii ay iswaafaqi waysay xaaladoodii hore. Bokiam wuxuu u tegay Janmin wuxuuna tirtiray dhammaan xasuustii Janmin. Bokiam wuxuu soo xasuustay waayihii hore. Wuxuu ahaa ilaaliyaha buurta oo dadka oo dhami ay ka dambeeyeen. Kadib markii ay Hena iyo Siwon ay xiriir dhab ah bilaabeen, jacaylkoodu aad buu u kobcay. Markii uu Jajin arkay Siwon oo dhoola cadaynaya, wuxuu ogaaday inuu jacayl uu ku jiro. Jajin wuxuu Siwon u sheegay waxyaabaha ay Hena jeceshahay. Waxaana ka mid ah inaan marnaba laga codsan inay samayso waxyaabaha ay aygu sameeyaan. Inay jeceshahay cabidda kookaha halkii ay ka cabbi lahayd kafeega. Inay tahay gabadh xishood badan. Jajin isna wuxuu Hena u sheegay dabeecadaha Siwon. Wuxuu jecel yahay inuu cuno ukun la shiilay. Wuxuu jecel yahay inuu indhaha isku qabto markuu wiishka ku jiro. Wuxuu aad u xiiseeyaa maadada xisaabta. Kadib maamula ku-xigeenka ayaa soo saaray sharci mamnuucaya inay macallimiintu jacayl isku muujiyaan dugsiga dhexdiisa. Laakiin Hena iyo Siwon markasta si qarsoodi ah ayay gacmaha isku qabsan jireen, waxayna ku kulmi jireen qolka jimicsiga oo had iyo jeer cidlo ahaa si ay u wada xaasaawaan. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsani.